warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa qayb ka noqotay safar lagu koorgaliyay xaaladaha bini'aadanimo ay wajahayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dhulka miyiga iyo sidoo kale tuulooyinkaba maamulka deegaanka Qarqoora ee waqooyi bari gobolka Mudug bartamaha Soomaaliya iyo warbaahinta qaranka ayaa si wada jir ugu koorgalay xaaladaha ay ku nool yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool tuulooyinka dhaca bariga waqooyi gobolka Mudug bartamaha Soomaaliya waa kuwan qaar ka tirsan xoolo dhaqatada deegaanadaas ku nool oo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kaga warramay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira halkaas waxa meeshan ka jira abaar baan oo lixaad leh ayaa ka jira iyo baahi intaba iyo biilaan intaba waxa soo rarnay 4 deedi ayaa soo rarnay ariga aawada xoolihii aawadanay wax yar baa markaan aawadana oo baahi iyo oon daraadiis markaana darabta ayaa wax ugu qaadana waxa ka cabsanayna caalamka meesha waxa ka soo xeeb ay ka soo guurnay waxa ka soo meesha la yiraahdo waxa ka soo laaban duldogob ka soo laaban intaasna xoolaha waxna waa laga soo tagay inta laga soo tagayana badan wax yar baan markaan faraayga ku jira waana oon daraadiis sida rag hore u sheegay meeshaas xeeb baan ka soo raray meeshaan marsiinay waxaan geynay galdogob waa ku soo celinay markaan hadda meeshaan maraynaa wixii aan wadan waa noo socon waayeen waxayna noogu socon waayeen oo daraadi marka macnaha gudoomiyaasha iyo rag iyo waxaan ka codsanaynaa hay'adaha in biyo degdeg ah oo hadeena la soo gaaro macnaha biyo aan ba ugu daran wax hadda shaygi waxa loo dhaansan jiray wax qaadi waayay kii hadda waxa way xoolihii kale waa socon waayeen meeshaan gudoomiyaha magaalada Qarqoora Cabdullaahi Abshir ayaa safarka kadib la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed wuxuuna tilmaamay in bulshada ku nool magaalada Qarqoora iyo sidoo kale tuulooyinka hoos yimaadaba ay wajahayaan xaalado bini'aadanimo oo ka dhashay abaarta taasoo iminka saameyn ku yeeltay bulshada saaka waxaan ku soo baxnay kormeer iyo dhayn deegaanka Qarqoora iyo tuulooyinka hoos yimaada aan ku sameeynay oo aan la darsaynay xaaladda abaaraha ee deegaanka ka jirta gobolku qayb ka ahaa oo lagu hogaaminayo agaasimuhu waxaan soo marnay tuulooyin badan oo deegaanka hoos yimaada waxaan soo aragnay xaalad alba ka jirtay oo aan rabnay in la arkaan maamulka gobolka Mudug oo ah abaarta maanta ka dhacday Soomaaliya deegaankan si gooni u taabatay oo deegaanka Qarqoora afar xil rabaad isku xigta oo ka da'in abaar ahayd dhulkii ay ka kacday ciid ka kacday baad ka kacay geedihii sida arkaysaan oo soo dul fuulay baad uu qariyay geedihii hooyinka ahay xoolo daaqal haayeen kuwa yaraan salka ka jaray deegaanka waxa ka jirta abaar saayid ah